kadib dagaal xoogan oo duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku dhexmaray ciidamada Somaliland iyo kuwa la baxay SSC ayaa waxaa jira tiro madaafiic ah oo ku dhacay xaafado kamid ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta oo Jimcaha gaashaan la dhexe Maxamed Cabdullaahi Xirsi Tahliil ayaa sheegay in ciidamada Somaliland ay soo weerareen saldhig ciidanka SSC ay lahaayeen halkaasna uu ka dhacay dagaal qaraar oo faraha looga gubtay sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay sargaalkan in weerarkii ay ku soo qaadeen ay tiro madaafiic ah ugu qaybiyeen xaafadaha magaalada Laascaanood kuwaasoo qaarkood burbur xoogan u geystay xarunta maamulka magaalada Laascaanood iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaala gudaha magaaladaas. wararka aan ka helayno goobaha dagaalka ee magaalada Laascaanood ayaa sheegaya inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray iyo sidoo kale khasaare dhaawac oo ka dhashay hoobiyaasha ciidamada Somaliland ay ku garaaceen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dagaalka maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ku aadaya xilli Mareykanku uu war ka soo saaray dagaalka ka soconaya halkaas looguna baaqay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Laascaanood inay sida ugu dhaqsiyaha badan dirirta joojiyaan. dagaalkan ka soo cusboonaaday magaalada Laascaanood waxa uu sidoo kale dhaawacaya waan ay wadeen odayaasha dhaqanka ee ka baxay magaalada Muqdisho kuwaas oo uu horkacayay ugaas Maxamuud Cali ugaas Cabdulle oo markaasi ku hanweynaa in xal nabadeed oo dhaba ay ka gaaraan xiisada colaadeed ee u dhaxaysa Somaliland iyo sidoo kale dadka degan magaalada Laascaanood oo sii xoogeysanayay.